xafladda qalin jabinta xifdinta quraanka kariimka ee Daarul Xikma ayaa maanta ka qabsoontay barxadda weyn ee markiskaasi halkaas oo ay ka soo qayb galeen waalidiin waxgarad ganacsato iyo uqaal waxa ugu horeyntii madashaasi ka hadlay maamulaha markiska Daarul Xikma Sheekh Mawlid Farax Raage waxaana uu yiri ama markaasi waxa weeyaan xifdigii quraanka kariimka ah qoladii xifdiday Ilaahay subhanahu wa ta'ala إلهينا وفدودي كواس أها كوا الله صاحري سكولدي أرديجن تريون وحوي قرآن كوكلية كواس ولي بشرف قال له والدين تيمركاسي قرطي فهمي قرآن كينا وحبل له الرئيسين كريم إلا هاي حفظيان كواس وحنسو تشيدليا mahadnaq aad iyo aad u balaaran oo waxa weeyaan waa waalidiinta kale waxay dheer yihiin waxay ka adkaysteen amarkaasi waxa weeyaan labadii ahayd xaggana iskuulka ha dhigto xaggana maganasa waxa weeyaan quraanka ha tago tiibay ka adkaysteen oo meel kaliya iyo iskugu biyashubteen meel iskugu biyashubta meeshii ugu fiicnado kalaam rabbil caalamiin sidoo kale intii munaasabadani qalin jabinta xifdinta quraanka kariimka lagu guda jiray waxa ayaguna hadal ka soo jeediyay marti sharaftii ka soo qayb gashay waxaana yiraahdeen anu ma hadlaqayna madrasatu Daarul Xikma iyo alqaayimiin calayha mudiirkeeda iyo macallimiinteeda dhamaantood oo markaa juhdi farabadan oo dadaal farabadan geliyay ardaydaas markaa maanta midhaha ay soo baxay ee kitaabka la xifdiyay fajazaahumullahu khayral jazaa ilaahay subhanahu wa ta'ala abaal farabadan iyo ajar farabadan ka siiyo oo ha ku karaameeyo macnaa waxa weeyaan karaamo dhammaystiran يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم maalintaas oo anfacaya خيركم من تعلم القرآن وعلمه نبي عليه الصلاة والسلام وحيدينكم خير بدن مثل القرآن كبرتا دبدنا يسنسي برادتك يا قدبيا وحنا ما كان موسنا على وجه الأرض كتاب يوفى من بطنا القرآن ما كان الله ولا ما كان الله يسقط دارو وحوي وحيسبق ما حيصبح بمره واحد لا ما تبغى كهرب وحفلة صاص وكلام وقلبي نهاد وهوي وهوي قلوبتي نطحن إليه أين كتاب إلى يحل حفظه أيقول ليس حقيقة كنا هانا كتاب هو كتاب كقرآن وواحد قد والنهي مخلوقات كلام قد والنهي وحقوق الإنسان أنت له بحيو فكرة له بحيو دلال له بحيو أولاد وقام فعيا marka waxa weeyaan inaan maskaxdeena u soo jeedino awlaada inaan wax barno wax la barano waxa uu qaalisan kitaabka Allah subhanahu wa ta'ala kitaabka Ilaahay wax ka qaalisan ma jiro laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala ta'qilun culimada inoo soo dhameysay marka sharaf iyo cizi waxa laga helayaa quraanka kariimka dambidaa iyo raaliyaasho waxa laga helayaa kitaabka quraanka kariimka بشارة إلى وكوب بشارين ولا قدام وحلقه ليا كتاب القرآن الكريم. لكن واحد إما كوقف فرحسنا يعني ذكر المكان دول كنا اللي يرسم مالي وكلامك زي الكيريال السنة وحبرنا إلهي خير يدسيو لكن هو حكم مغدا سوق الجوكته يوحي يقول كذا عين مالمان هكون من المنة أنا هذه إذا أردت وحكرت ليا ذكر حفاظة إن أنا كل من sunta ragga fariisanaya gidaarada cabad daroogada sigaarku ugu sahlan yahay bahasha la yiraahdo xashiishka baayada irbada la isku mudo lagu sumoodo kiniiniyaasha la qaato dadka aqliga ka qaada bal iska badaa wax kale lagu aqli beelo iyo aayatiin aan lahayn la falgelina la saaxiibina quraan ma xafidin aqoon kale ma dhiganin khadka ay ka dhaceen ama andhalo أما ضدك لهذا أما بلاك لهذا ضدك النوع عسى نوي وكله خير إلى ضمن خيرنا الله يوفق خيرك إلى يوفق إلى هي اللي يقصيه
guntiga gabagabadii xafladan qalinjabinta quraanka kariimka markii ay soo idlaatay ayaa 8 arday dhamaystay xifdinta quraanka kariimka waxa la gudoonsiiyay shahaadooyin sidoo kalena waxa madashaasi ku sugnaa waalidkii dhalay ardaydani oo fooladeynayay ardaydan sidoo kalena jawaayis gudoonsiinayay waa Shucayb Maxamed Kaan Shucaybiga telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Boorama.